xidigaha ugu mushaarka badan horyaalka Spain ee La Liga oo la shaaciyay yaa ku jira liiskan yaase ka maqan warbixinta muuqaalka ayaan idinkugu soo gudbinayaa saaxiibayaal balse intaan u guda galin saaxiibayaal muuqaalka laag inoo saara soo dhawaada mahadsanidin Frankie de Jong ayaa ah ciyaartooyga ugu mushaarka badan ee ku dhawaad laba jibaarka ka badan laacibka ku soo xiga waxaana uu qayb ka yahay dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta Barcelona oo isku dayday xagaagii hore markaasi inay iibiso laakiin xuddigani uu iska diiday gabi ahaanba inuu ka tago qalcadda Nou Camp ee ku dheesho kooxda Barcelona in ka badan 200,000 oo gini ayuu Frankie de Jong ka sareeyaa ciyaartooyga ku soo xiga marka la eego mushaarka toddobaadlaha ah ee horyaalka waddanka Spain ee La Liga uu markaasi ka qaato saxiixa cusub Real Madrid ee Jude Bellingham ayaa wuxuu Los Blancos mushaar ahaan uga qaadanayaa kala badh mushaarka ee Barcelona siiso Frankie de Jong oo toddobaadkii u xaadira 619,283 gini halka Jude Bellingham oo isbuucii u xaadirayo 327,000 oo gini Bellingham waxa uu kaalinta sideedaad kaga jiraa liiska ciyaartooyda ugu mushaarka badan horyaalka Spain ee La Liga waxaana ka sareeya Roberto Lewandowski, John Oblak iyo Vinicius Junior oo isku mushaar ah iyo Luka Modric, David Alaba, Toni Kroos iyo Frankie de Jong haddaba saaxiibayaal waxaan si guud u eegaynaa markaasi ciyaartooyda ugu mushaarka badan horyaalka waddanka Spain ee La Liga sida u kala horeeyaan iyo liiska qaababka ugu kala jiraanba xidiga koowaad kana waxaa lagu magacaabaa Frankie de Jong waxa uu ka tirsan yahay kooxda Barcelona toddobaadkii waxa uu qaataa 619,283 gini xidiga labaad ee ku soo xiga waxa uu ciyaaraa kooxda Real Madrid waxaana lagu magacaabaa Toni Kroos 402,687 ayuu ka qaataa toddobaadkii kooxdiisa xidiga saddexaad waxaa lagu magacaabaa David Alaba wuxuu ka tirsan yahay isla Real Madrid waxa uu toddobaadkii qaataa 371,570 gini xidiga afraad waa Luka Modric oo u ciyaara kooxda Real Madrid 361,311 ayuu ka qaataa toddobaadkii kooxdiisa Real Madrid xidiga shanaad ee liiskan ku jira waa Vinicius Junior oo ka tirsan kooxda Real Madrid waxa uu toddobaadkii qaataa marka loo fiiriyo xidiga reer Brazil 343,991 xidiga lixaad waa John Oblak waxa uu ka tirsan yahay kooxda Atletico Madrid toddobaadkii waxa uu qaataa mushaar la mid ah mushaarka Vinicius Junior 343,991 xidiga toddobaad waa Roberto Lewandowski oo u dhashay waddanka Poland una ciyaara kooxda Barcelona toddobaadkii waxa uu mushaarkiisa la mid yahay xidigaha John Oblak iyo Vinicius Junior 343,991 ayuu qaataa Jude Bellingham sideedaad ayuu fadhiyaa Real Madrid ayuu ka tirsan yahay 327,000 ayuu toddobaadkii qaataa sagaalaad Koke oo Atletico Madrid ka tirsan 264,288 ayuu qaataa toddobaadkii tobanaad Thibaut Courtois oo Real Madrid u ciyaara 247,713 ayuu toddobaadkii ka qaataa waana markaasi xidigaha ugu mushaarka badan horyaalka waddanka Spain ee La Liga